والله هذا وحكى لما جرانا دولة قبل هذا أنتي دولة نمذ الصومالي جعل ذاتك أنتي دولة نمذ الصومالي كشهر جدين ويا مغي أنت أزمرك شعبك الصوماليات يدمان مسؤولين تودا وحيكو أبورتي أركتعس أنا هوريان وأوجا إن جبلان أي دولة نمذ الصومالي أركبت إن بولدان أي كدو ده الصومالي دولة قرقرتهم أنت هو أوجاني مركا لكن شعبك الصوماليات هذه مركز أنا ستوس وروح وشيء قالك حلبانكم حوق ودول قبلات كاس ويريا إن ليرة هذا أي صورة قلت أما حلبان صاحبك يو كرسي إلى فدي يقولك هذا شو دورت أو إيد بسد لكن هذا كيار ضد كيار بقول كيار بقول وحيوذا أوجادين إن لو دول قبلات أين الربين صومالي نم وحن أوجه دول دي كهر رئيسي هالشيس إذا لسه هالشيس قار إلى الجالك بولدان أو أي مرقاتي ويصير كأنما هدي مرقاتي لو كان سيدا إثيوبيا فرقلنا ذلك أنا يكوقس بين إن مرقاتي هالشيس سومالي لحد كلا عاية مرقاتي إن لويا عبدولي وها وحياوها أو دي دناي وحياة 4.5 ما أنت أسقيها 4.5 يجي 4.5 أونلاين هاي أو ربع دور شدد من 4.5 مركا markii aan iraahno janna hala galo iyagu waxay leeyihiin naar hala galo markii muxuu ahaay gaab iyo muxuu ahaay wax ay jiraan iyaga waa cid qaylinayso gaabkan ka qaylinay marka marnaba waxa dhibaysa waxa la yiraahdo dawladnimada Soomaaliya waxayna isma hadiyeen oo dawladnimadii ayay ismoodeen inay ku naaxeen sax ma dawladnimo haday dawladnimo timaado عد مال نبض جوجيس مال دل كوردن أسجى إن أدير كيس دتك وحاجة قفصنا يا حل قفل بوالس كوذا دجا وأجنه وحيد دول الآن أي نصام مرسيسي عدي أوجا عدي اسمه موجيسينيسي إذا هل أورو US ليرة أي إلا من بوساس إلا من جارس إلا وجير لك قايليناي أو ودك يو نقص أو دتك يودن أي لبسدين dadkii noocaas ay markaa hogaaminaya maanta ahlu shariif oo bariitimo dawladnimadii iyo kaaliya iyo wanaag muujinay waa jirtaa runtii wax la xaqirayo ma aha wax la diidi karana ma aha in uu jiro gaab oo muxuu ahay dadaal xumo inay muuqato waayo cadowgan muxuu ahay maalin walba dhibka geysanayo oo haddana inta la qabtay dadka la horkeenayn runtii waxaan dhihi karaa tusaale ahaan aniga hadda markii aan hotel elite soo aadayo intaan Soomaaliya liigu soo baara oo waliba liiguma simaa anoo baabuurkayga saarnaa darawalkayga waxa la weydiiyaa kaarka marka ama aniga kaarkayga lii weydiiya markaan iraahdo xilwaan jeeso waanahay you can believe baabuur miinaysan oo askar ay saaran tahay oo aan la aqoon dalka ka diiwaan gashneen oo qofku wado loo jeedin oo wuxuu yahay la ogeyn in la iska sii daayo ilid oo tago waa runtii waxaan leeyahay dadaal xumo ayaa jirta marka waxaan rajaynaa in dadaalka la badiyo wallahi hadda wax kala ma jiraana dowlad goboleedyada intii dowladnimada Soomaaliya jecleedaa tagtay intii dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeedina way maqay arintaas marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas'uuliyintooda waxay ku abuurtay aragti cusub aniga horeyaan u ogaay in Jubbaland ay dawladnimo Soomaaliya rabin in Puntland ay ka dhowdahay Somaliland oo looga gorgortamo inta waa ogaanay marka laakiin shacabka Soomaaliyeed hadii markaas anoo si toos war uu sheegay la arko xildhibaanka muxuu dowlad goboleedkaas u weeraraya in la yiraahdo ayaa suurtagal ah ama xildhibaan saaxiibkay oo kursiga ila fadhiyo dhulka laga soo doortay oo ii dhibsado laakiin hadda kiyaar dadkii oo dhan boqol waxay wada ogaadeen in labadaas dowlad goboleed ayna rabeen Soomaalinimo waxaan ogahay dowladii ka horeysay heshiis idoo la soo heshiis gaar ila la gaalay Puntland oo ay marqaati wasiirkii arrimaha dibadda marqaati loo keensaday Ethiopia فرقلنا ذلكنا يكون قصبين إن مرقاتي هالشيء الصومالي لحظة كلا عاية مرقاتي إن لويا عبدولي وها
waxyaabaha oo diidanaya waxay ahayd 4.5 maanta asagaa 4.5 iyagaa 4.5 oo leynayo oo rabo doorasho dadban iyo 4.5 marka markii aan iraahno janno hala galo iyaga waxay leeyihiin naar hala galo markii muxuu ahaay gaab iyo muxuu ahaay wax ay jiraan iyaga waa cidda qaylinayso gaabkaan ka qaylinay marka marnaba waxaa dhibaysa waxa la yiraahdo dowladnimada Soomaaliya wayna ismahadiyeen oo dowladnimadii ayay ismoodeen inay ku naaxeen sax ma ah dowladnimo haday dowladnimo timaado cid meel nabad joogaysa mala dalka oo dhan asaga in adeerkiisa dadku ugu xigaa ku qabsanaya xilka qof walba waa la isku wada dhagaa waa ognahay waxay dowlad la'aan ayna soo marsiisay cidii ogaa og cidii ismoogmoogaysiinaysay iidaa og hal ururo USC la yiraahdo ayaa ilaa min Boosaaso ilaa iyo min Gaarisa ilaa Wajeer laga qaylinay oo wadankii oo dhan qas oo dadkii oo dhan ay dhibsadeen dadkii noocaas ay markaa hogaaminaya maanta ahlu shariif oo bariitimo dowladnimadii iyo kaaliya iyo wanaag muujinay waa jirtaa runtii wax la xaqirayo ma aha wax la diidi karana ma aha in uu jiro gaab oo muxuu ahay dadaal xumo inay muuqato waayo cadowgan muxuu ahay maalin walba dhibka geysanayo oo ah haddana inta la qabtay dadka la horkeenayn runtii waxaan dhihi karaa tusaale ahaan aniga hadda markii aan hotel elite soo aadayo intaasoo meela liigu soo baara oo weliba liiguma simaa anoo baabuurkayga saarnaayo darawalkayga waxaa la weydiiyaa kaarka marka ama aniga kaarkayga lii weydiiya markaan iraahdo xildhibaan jeeso waan nahay you can believe baabuur miinaysan oo askar ay saaran tahay oo aan la aqoono dalka ka diiwaan gashneen oo qofka wado loo jeedin oo wuxuu yahay la ogeen in la iska sii dayo ilid oo tago waa runtii waxaan leeyahay dadaal xumo ayaa jirta marka waxaan rajaynaa in dadaalka la badiyo wallahi hadda wax kala ma jiraana dowlad goboleedyada intii dowladnimada Soomaaliya jecleedaa tagtay intii dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeedina way maqay arintaas marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas'uuliyiintooda waxay ku abuurtay aragti cusub aniga horeyaan u ogaay in Jubbaland ay dowladnimo Soomaaliya rabin in Puntland ay ka dhowdahay Somaliland dowladda gorgortamo intaba waa ogaanay marka laakiin shacabka Soomaaliyeed hadii markaas anoo si toos war wax uu sheegay la arko xildhibaanka muxuu dowlad goboleedkaas u weerarayaa in la yiraahdo ayaa suurtagal ah ama xildhibaan saaxiibkay oo kursiga la fadhiyo dhulkaas laga soo doortay oo i dhibsado laakiin hadda kiyaara dadkii oo dhan boqol waxay wada ogaadeen in labadaas dowlad goboleed ayna rabeen Soomaalinimo waxaan ogahay dowladii ka horeysay heshiis idoo la soo heshiis gaar ah la gaalay Puntland oo ay marqaati wasiirka arrimaha dibadda marqaati loo keensaday Ethiopia ee faragelin dalkeena ay ku qasbeen in marqaati heshiis Soomaaliya dhaxdeeda ka dhacay marqaati in loo yeelo Cabduuli oo ahaa waxyaabaha oo diidanay waxay ahayd 4.5 maanta asagaa 4.5 iyagaa 4.5 oo leynayo oo rabo doorasho dadban iyo 4.5 marka markii aan iraahno janno hala galo iyaga waxay leeyihiin naar hala galo markii muxuu ahaay gaab iyo muxuu ahaay wax ay jiraan iyaga waa cidda qaylinayso gaabkaan ka qaylinay marka marnaba waxaa dhibaysa waxa la yiraahdo dowladnimada Soomaaliya wayna ismahadiyeen oo dowladnimadii ayay ismoodeen inay ku naaxeen sax ma ah dowladnimo haday dowladnimo timaado cid meel nabad joogaysa mala dalka oo dhan asaga in adeerkiisa dadku ugu xigaa ku qabsanaya xilka qof walba waa la isku wada dhagaa waa ognahay waxay dowlad la'aan ayna soo marsiisay cidii ogaa og cidii ismoogmoogaysiinaysay iidaa og hal ururo USC la yiraahdo ayaa ilaa min Boosaaso ilaa iyo min Gaarisa ilaa Wajeer laga qaylinay oo wadankii oo dhan qas oo dadkii oo dhan ay dhibsadeen
dadkii noocaas ay markaa hogaaminaya maanta ahlu shariif oo bariitimo dowladnimadii iyo kaaliya iyo wanaag muujinaya waa jirtaa runtii wax la xaqirayo ma aha wax la diidi karana maaha in uu jiro gaab oo muxuu ahay dadaal xumo inay muuqato waayo cadowgan muxuu ahay maalin walba dhibka geysanayo oo ah haddana inta la qabtay oo dadka la horkeenayn runtii waxaan dhihi karaa tusaale ahaan aniga hadda markii aan hotel elite soo aadayo intaasoo meela liigu soo baara oo weliba liiguma simaa anoo baabuurkayga saarnaa darawalkayga waxaa la weydiiyaa kaarka marka ama aniga kaarkayga lii weydiiya markaan irahda xildhibaan jeeso waa nahay you can believe baabuur miinaysan oo askar ay saaran tahay oo aan la aqoonino dalka ka diiwaan gashneen oo qofku wado loo jeedin oo wuxuu yahay la ogeen in laiska sii dayo iliid uu tago waa runtii waxaan leeyahay dadaal xumo ayaa jirta marka waxaan rajaynaa in dadaalka la badiyo